wareegtadii annaga horta nala ku qoray baa qaldanay waxa ahayd sanad dugsiyeedkii 1912 ilaa 12 wixii dugsiga dhexe ka dhacay hal qolo military loo qaato marka waqooyigu ma dhici jirin annagu ma aanu dhicin laakiin tayiglu iyo hiil weyne labadii kuleel la geliyay baa dhicid ahaa oo dhacay marka kuwa dhacay iyo kuwa soo baxay dawladda markii la yiri sheekh wax dhacay ma jiraan dawladda maxamed siyaad barre waxay tahay anagu 800 reer waqooyi darajo siin mayno tableha laga soo wada bilaabo tabeedna waxaanu sameynay waxaan nalgay ilaa garoowe ilaa iyo afmadow oo urur boqol koob iyo kontonaad loo jiro deganaa baan la daadiyo naloo qaybiyay marka dablihi oo iimeysateen maanu iimeysane military-giba waanu waa loo boqol iyo 95 qodob military final korkii ku kordhinay aan jiri jirin dawarsi kuma jiri jirin aflagaada madaxeed kuma jiri jirin waxaasoo dhan baan ku kordhinay waanu waalay dabeedna muddo sanad iyo bana markaanu 190 ka qodob hudheelo la fadhiisto tay salaha la dhiibo calow ma jiri jirin waxa loo oran jiray waa secret military oo lama dhiibi jirin tay salaha lama dhigi jirin iyana intay jubba toban fadhiisteen taleexna toban fadhiisteen ay tay sarihii dhibanayaan ku sii maxamed cali sabatar ka qaado ninkaasana soo qoray hudheeladiiba waa yaabeen habeenkii xarunta gaashaandhiga sarkaalka iyagu ku sadon isugu geeyay tobanna bacadlihii bay boobeen shantalaale ku xamar weyne dabeedna saldhigii shantalaale ula cararay iyagoo muddada dheer sita marka ma kuwii la soo qoray oo dhan baa mise 800 sheekh waxay markaa doonayaan in la ruqseeyo haddaan kaaga sheekeeyo qodobada qaarkood aan weligaa dhicin nin loo jiray shaydaan waqooyi oo markii dambe la ruqseeyay noqday askarti gadal aanu may Sacuudi Arabiya u dhoofay ayaa abaanduule xooga dalka Soomaaliyeed Cabdalla Maxamed Faadilo golay sare ka kale ku jira ayuu qosol bilaabay isagoo noo qodbeeyay dhalinyaratihiin ciidamada anfacaysaan ku noqday meelihii ka timaadeen ka soo baxsateen oo noo qodbadeen iyo afisyooni ayuu qosol ku dhuftay shaydaan waqooyi baa qosol ku dhuftay ina qaadiba loo jiro wal maxaad ku qosayna waa ku dafa wal maxaad ku qosaysaa Cabdalla Maxamed Faadilo abaanduula xooga dalka Soomaaliyeed golaha sare ka kale ku jira il footariya ugu jirta calaw wuxuu yiri wallahi inaan wax kale ku qoslayaa boodisaa buu Cabdallo ishaadaas iskeed isaga madax banaani iska wareegaysa ayaan ku qoslayaa buu aflagaada madaxeed qodobkii horta waa lagu daray military final court isagana waa la ruqseeyay sida ruqsadu doonay Umar Maxamed Caamir bundadii Asalooti intuu direeskii gashay bundadii Asalooti ugu dadka badnay ayuu calaw fadhiistay dawarsigu la fadhiistay waxa la wixii dawladda militariga nabca ayaa markii la lacag ka buuxiyay gooyisi 800 shilin isagoo wato halka ku sita ayaa maxkamadii la soo galiyay kuma jirin nidaamka militariga askari dawarsada isla waa la ruqsiyay maxkamadda qosashay 800 buu loo qaybiyay wuxuu yiri wala anigu gabi baan tagaya Umar Maxamed Cabdi labada 8 ka shilin bay gaarsiinaya Maxamed Siyaad Barre ugu fakara inta kale hoo wata lacagti anigu hadii ka baqay baan ahay rag baa yiri jubayno caawa fariisanayna waynu cashaynayna dabadna Maxamed Cali Sabatar u doonayna odhanayna anigu ragii ka gabaday baan ahaa toban kalena waxay yiraahdeen taleex baan nana fariisanayna tobanna waxay yiraahdeen bacadlihii xamar weyne iyo goobeyna anagoo bundaadkii dharka aan loo ordaynaanu galeynaa shantalaale meesha saldhig baa loo soo ordaya wadadku dee way ka baqayaan askari labisan oo jooga 3 afreetwaadkii jooga deeriyan maayana way daba ordaya bal meeshu la gala buddadiisa dharka ah qabanna maayaan dabadna saldhigii buu la galay soddonkaana habeenka waa la ruqsiyay waxay doonayeen waa ruqso mar hadii xidigsi la waayay waa ruqso wuu loo fakiray markaasoo al samatul in maskax meelan ahaa ayaa yiri horta nimanka aynu 400 ilaa 300 kala baxno oo ciidamada inoo hogaamiyo aqoon inoo noqda wixii kalena aynu iska erido anigu waxaan toddobaadkii markaa sharciga iyo maamulka la baray oo muddo meel dawaan loo jiray muddo sanad ah ayaanu maamulka iyo sharciga ku baranay waa labada igu sii dhagayay inay ciidamadii sii jirto okay way markaad damaaneed gasheen macallimiintii waqtiga yaad ka xusud macallimiintii waqtiga waxaan ka xusuudaa maamulka lacagta horta hoggaanka maamulka lacagta la bariyo nin Bashiir loo jiro qasteejiga xooga dalka Soomaaliyeed waxa diglaha oo rag Talyaaniga ka yimi ka mid buu ahaa nin diirshe loo oran jiray oo madaxa baarista hoggaanka maamulka lacagta haystay oo qaybtan 26aadna mar maamulka lacagta ka ahaa
isaguna macallimiinta iyadu ahaa nin la oran jiray cali cabdiraxmaan xeraalyaha guud ee ciidamada ahaa waa ninka sharciga isaguna nabariyay nin abukaata ah loo yarahay oo la jiray cali aadan xasan oo hoggaanka maamulka lacagta markii dambe noqday aweys jeelaani nin la oran jiray bedelay ninkaasuna isna wuxuu la bari jiray shuruucda marka sidaasana maamulkii lacagta iyo shuruucda marka sanadii baa ku jirtay sanadii baa ku jirtay